Assalaamu calaykum saaxiibayaal. Ku soo dhawaada channelka Aragtida Maanta. Muuqaalkeena maanta waxaan ku sharaxaynaa filim aad u xiiso badan oo lagu magacaabo The Call Up, kaas oo soo baxay sanadku markuu ahaa 2016. Filimkan ayaa ah shirqool lagu casuumay 8 dhalinyaro ah, kuwaas oo si fiican u yaqaana ciyaarista gameka dagaalka ah, loona ballan qaaday midkii ku guuleystay in uu heli doono lacag dhan $100,000. Arrinta la yaabka leh ayaa ah in dhammaantood ay halis ku gelin doonaan ciyaartan. Daawasho wacan. Carol Anderson oo ah wiil aad u yaqaana ciyaarista gameka ayaa ku toosay alarmka teleefankiisa isagoo u degdegay ballantii uu la lahaa dhalinyaradii ay wada ciyaari lahaayeen, kuwaas oo ku sugayay dhismo weyn oo ka kooban 25 dabaq. ciyaaryahanadaas waxaa ka mid ahaa Shelly, Marco, Andre Edward, Sahid iyo Adam. Markii ay isu yimaadeen mid walba oo iyaga ka mid ah, waxa uu la yaabay jawiga meesha. Isla markiiba waxay dhammaantood maqleen cod kaas oo u sheegay inay ciyaarta bilaabanayso, iskana diiwaangeliyaan tableedada miiska loo dul saaray si ay ciyaarta uga mid noqdaan. Mid walba oo iyaga ka mid ah waxaa la siiyay sanduuq uu dharka ku rito iyo alaabaha kale oo wato. Kadib isdiiwaangelinta waxaa la siiyay oo lagu amray inay xirtaan dhar isku eg kaas oo loogu talagalay ciyaarta. Intii ay dharbashada ku jireen, waxaa sheeko yar dhex martay Shelly iyo Carol, laakiin waqtiga ciyaarta oo dhow awgeed fursad umay sii helin in ay sii wataan sheekadooda. Dhammaan 8 ciyaaryahan waxa ay soo galeen qolka lagu iskaan gareeyo si loo hubiyo inay ciyaaryahanadu ka diiwaangashan yihiin ciyaarta. Kadib waxaa la siiyay dhammaantood jaakado casri ah oo ay tiknoolajiyadooda aad u sareyso iyo koofi leh shaashad dhala ah oo ay ciyaarta loogu talagalay, kana caawin doonta aragtida goobta macmalka ah ee ay ciyaartu ka dhici doonto. Qaybta dambe ee jaakada waxay leedahay qayb isku xiraysa jaakada iyo koofiyadda, taas oo u diidaysa ciyaaryahanka inuu dharka ciyaarta iska saaro, kana dhigaysa mid ciyaarta ku sii jira ilaa ay dhamaanayso ama uu ka dhimanayo. Isla markiiba waxaa xirashada dharka diiday Sahid oo ah ciyaaryahanka kaliya ee muslimka ah ee kooxda ku jira, isagoo oo dhaliisha ka dhigay in uusan xiranayn jaakad ay ku qoran tahay ereyga terrorist oo macnihiisu yahay argagixiso. Kadib waxa uu isku dayay inuu ciyaarta isaga baxo, waxa uu dhaqaaqay dhanka albaabka, laakiin uma suuragelin inuu albaabka furo sababtoo ah lama ogola ciyaarta qof soo galay inuu banaanka uga soo baxo. Dib Shelly ayaa u soo dhaqaaqday dhanka Sahid, iyadoo isku dayday inay Sahid ku qanciso inuu ciyaarta ka tagin, una sheegtay in arrintaas uusan waxba ka soo qaadin. Kadib Sahid waxa uu ka tanaasulay cabashadiisii, waxa uuna ku soo laabtay ciyaartii oo waxa uu xidhay dharkii ciyaarta loogu talagalay. Intaas kadib, markii uu qof walba u diyaar garoobay ciyaarta oo uu shaashadii koofiyadda xidhay, waxa hal mar isbedelay jawigii qolka ay ku jireen, kaas oo noqday duni kale oo aan ahayn tii ay wax yar ka hor ku jireen. Dhammaantood waxa ay la cajabeen jawiga iyo sida la yaabka leh ee ay ciyaartu ku bilaabatay. Carol ayaa shakiyay oo waxa uu iska saaray shaashadii koofiyadda si uu xaaladda u qiimeeyo, laakiin waxa uu xaqiiqsaday in wax walba ay caadi yihiin. Kadib waxa ay u soo dhaqaaqeen dhanka daaqadda iyagoo wada eegaya waxa ka socda banaanka. Waxa ayna arkeen diyaarado ciidan iyo magaaladii oo dagaal ka socdo. Dhanka kale, wali qaar ka mid ah ciyaaryahanada waxa ay la dhacsan yihiin qalabka gameka ee lagu ciyaarayo ciyaarta, kaas oo ay iyagu xidhan yihiin. Laakiin wali Sahid waa mid aan ku qanacsanayn ciyaarta oo shaki weyn ayaa kaga jira ciyaarta. Waxa uuna u sheegay Carol in ay qalad weyn ahayd in uu ka soo beero ciyaartan. Isla kooxda waxa ay Shelly xaqiiqsatay in ay ka tirtimeen taatuugii gacanta kaga yaalay, taas oo la noqotay wax aan macquul ahayn. Isla markiiba waxaa dhammaantood isugu yeeray sarkaal robot macmal ah ka samaysan, waxa uuna ku amray in ay saf soo galaan. Durbaba sarkaalkii waxa uu bilaabay in uu dhaqdhaqaaq sameeyo sidii qof caadi ah si ay u xaqiijiso run ahaanshihiisa. Shelly ayaa isku dayday in ay taabato sarkaalkan, waxa ayna ogaatay in uu yahay muuqaal ay shaashada gameku abuurtay, kaas oo ah mid macmal ah. Sarkaalkii ayaa dhammaantood u soo kaxeeyay qolka kaydka hubka, una sheegay in ay dhammaantood iska baraaweeyaan qoryaha ay qaadanayaan. Andre oo ahaan jiray askari hore ayaa kooxday u sheegay in hubkan uu yahay mid run ah oo rasaas nool wata. Sarkaalkii ayaa dhammaantood kooxda u sheegay in ay jaakada ay wataan ay kaliya ka difaaci karto hal xabad. Waxa uuna xabad baraawo ah ku riday Sahid, taas oo aad u xanuujisay. Waxa kale oo intaas sarkaalku kooxda u raaciyay in aysan heli doonin jaakad kale oo dheeraad ah oo uu qof walba haysto hal chance oo uu ku badbaado
isagoo isticmaali doona cirbad la siiyey taas oo xanuunka ka joojin doonta kuna ogolaanaysa inay ciyaarta ka sii mid ahaato. waxa uu sarkaalku u sheegay in mishinka ay fulinayaan uu yahay in ay baabiyaan koox burcad ah oo dhismaha kula jirta ilaa dabaqa hoose ay ka gaarayaan, iyagoo ka bilaabanaya dabaqa 25aad oo ay hadda ku sugan yihiin. waxa kale oo uu intaas u raaciyay in uu guuleystuhu noqon doono midka ugu dhibca badnaada. ciyaartiina sidaas ayay ku bilaabatay. Andre ayaa bilaabay ciyaarta isagoo ka faa'iideysanaya khibradiisii hore ee ciidanimo, waxaana weheliyay Marco, Edward iyo Adam, halka inta kale ee kooxdu ay gadaal ka difaacayeen. si lama filaan ah waxaa kooxda u soo xabadeeyay mid ka mid ah burcadii, laakiinse nasiib wanaag waxaa dilay Andre oo sidaas ayay uga soo gudbeen dabaqii 25aad. waxa ay si nabad ah ku yimaadeen dabaqii 24aad, waxaana yaala kaliya 4 qori, taas oo ka dhigaysa in kooxda kala bar ay ku sii dagaalami doonaan qori rasaastoodii hore. waxaana 4tii qori kala qaatay Andre, Marco, Adam iyo Edward, waxaana barayay Andre sida loo isticmaalo qoryahan cusub. kooxda inteeda kale, Marco ayaa dilay mid ka mid ah burcadii, dhismihii oo dhanna waxaa qabsaday dhawaqa rasaasta oo meel walba ka yeerayay. Adam ayaa isaguna helay mid ka mid ah burcadii, dhowr mar oo uu xabad ku riday waa uu la heli waayay, laakiin waxaa badbaado ugu yimid Andre oo dilay burcadkii, isagana waxaa haleeshay rasaastii ay isweydaasanayeen burcadkii oo uu halkaas ku dilay. dhanka kale, Tyler ayaa ahayd mid aad u cabsanaysay, laakiin waxaa dejisay Shali oo u sheegtay in waxani ay ciyaar tahay, kana ballan qaaday in ay la jiri doonto. Shali ayaa aragtay mid ka mid ah burcadii, waxayna ka cabsatay in ay xabad ku rido, laakiin waxaa badbaadiyay Carol. isla markiiba Carol waxaa dhaawacay mid ka mid ah burcadii oo gadaashiisa ku dhuumanayay, laakiin markan Shali ayaa badbaadisay saaxiibkeed oo waxay dishay ninkii burcadka ahaa. kadib waxay u soo carartay dhanka Carol oo aad uga sheeganaya xanuunka dhaawaca soo gaaray, waxayna iska saartay shaashadii si ay xaaladiisa u aragto. waxayna arki weyday wax dhaawac ah oo uu qabo, iyadoo isagana ka saartay shaashadii si ay ugu qanciso in uusan waxba qabin. laakiin weli Carol waxa uu ka sheeganayaa xanuunkii, waxa uuna xaqiiqsaday in ay wax qaldan yihiin. isla markiiba waxaa soo galay goobta Andre oo ku muday saaxiibkiis cirbadii badbaadada ee uu haystay, sidaas ayuuna ku fiicnaaday Carol. Carol ayaa weli shoogsanaa, isagoo ku celcelinaya inay ciyaarta wax ka qaldan yihiin, xanaanku uu arkayana uu sax u dareemayay. dhammaan kooxda ayaa isku imaatay si ay waxa qaldan u ogaadaan. Carol ayaa u sheegay in jaakadu ay ku xanuujinayso marka ay xabadu kugu dhacdo, waxayna isla garteen in ay jaakada iska baxshaan, laakiin wax walba oo ay sameeyeen waa ay awoodi waayeen. Zahid iyo Marco ayaa ka eedeeyay Andre inuu shirqoolka wax ka og yahay, maadaama uu khibrad military lahaa. Andre ayaa iska diiday eedeymaha loo soo jeediyay, waa uuna ka tegay kooxda inteeda kale. Andre ayaa kaligiis qol galay, isagoo ka xanaaqsan eedeyntii saaxiibadii u soo jeediyeen, laakiinse nasiib darro waxaa meesha ku helay mid ka mid ah burcadii oo 2 xabo ku dhuftay. maadaama Andre uu cirbadii saaxiibkiis ku badbaadiyay, ma haysto waxa uu isku badbaadiyo. halkaas ayuu xanuun aan daran ku dareemayaa oo aysan cidna ka warqabin. dhanka kale, kooxda inteeda kale ayaa maqleen dhawaqa rasaasta, waxa ayna xidheen shaashadihii. wax yar kadibna waxaa mid ka mid ah burcadii uu xabad ku dhuftay Edward. kooxda inteedii kalena sidaas ayay ku kala carartay. waxaa isla markiiba Tyler ay u carartay dhanka jaranjarada, laakiinse nasiib darro waxay dhaafi weyday xarig koronto wada. meeshaas ayayna iskaga cabaaday, halka Edward weli uu la rafaadsan yahay dhaawacii, kooxduna ay xaalad culus ku jirto. Adam ayaa bamba ku qarxiyay burcadii, sidaas ayuuna ku noqday ninkii ugu dhibcaha sareeyay wareegaas. kadib Edward ayaa xaaladiisi aad u sii xumaatay, isagoo bartii ku dhintay. kooxdii ayaa saaxiibkood arkay meydkiisii oo qol dhex yaala. muuqaalkeenii maanta intaas ayuu ku egyahay. fadlan daawada la soco qaybta labaad oo hamoogaan. haddii aad channelka ku cusub tahay, subscribe noo saar, like iyo share tana hanaga ilaawin. mahadsanid.